قصدي يقول عجيب إنه واحد قصدي طلياني أنا وقف ستي ناق صومالية أو أفرنين قبطمي على مسيق أي قبان أفر أي قبان مدن مارك دقن مدلن دقن يلا بطلياني قد دقن والهبار قبطو سيدي بيوكل إلى الانترتي markii aanu wareysanayna waxaan ogaanay inay sanado sida ku waday xaqana ay ka dhureysay xaqana ay ka dhureysay xaqana ay ka dhureysay xaqana ay ka dhureysay lacagtu dhinac walba kaga socotay ragana ay kala farsameyn jirtay ilaahay muxuu qadaray markuu ilaahay wax fashilinayo oo agooni labadii ba diyaarad isugu yimi kii dhan maari ka soo duulay iyo kii London ka soo duulay ويس ورستينون وريا حاجات كل سعتايو حاجات كل سعتايو نيمول وحده دقيقة بعد إذا ما كل سعتايو قربان ماشي كل قبايو وكانوا متكلنا هل كان دن مارك بمدي وجو أصلا كان مد لندن وجو أصلا تانينا وقرصون تي جور قرين تجور نب كاستيل هذا سيد يقول إذا فديانو بتلفون بس صادعي وأنا سنع فديان تلفونكي waxa ka soo booday telefoonada imka smartka bay ahaayeen dan ka hadal ma aha kii Sheekh Cabdirashiid sheegay ma ku ilaab salaaxa qof markuu soo hadlo waxa soo booday sawirkiisa soo maaha sawirkeedii waa soo booday bul kii kalena ishiisa way ku dhacday warsidii wax u jiraan buu yaa gabadhan kula soo hadlaysa waa xaaskaygii xaaskaagii baa haa yaana waa xaaskaygii buu war maxaad ku hadlaysaa soo xaaskaagii ma aha haa yaana waa xaaskaygii wuxuu soo saaray sawirkiisna sawirkii buu soo saaray waa la isdhinac dhigay waa isku sawirkii arrintii baa naloo keenay bal naagtu dhiiranaanteeda may oranin arrintu waa labadan uune laba kala jirabeed yaa kanan ilmaha u hayo waa mid oo magaalo kale oo Milaan la yiraahdo jooga ka kalena magaalo Heblaayo jooga haye wal isugu wada yeera wixii baan isugu wada yeernay bal waanu wareysanay marka awal waxaanu maqri jirnay un rag wax qarqariye fajicsadina ugu weyneed bay ahayd naag afar ay qabaan naasideedu kala ilaalin jirtay habaar qabtooy waxa jira kan waqti gaaran u yeera kan waqti gaaran u yeera labadan magaalada joogay waqti gaaran aan shaqadiisa u qabta sidaas ku waday bayt sidaas ku waday ha markaasaan wareysanay midba taariikhdu guursaday dib baan u wareysanay hadda iyo hor leh yaa ala kulli xaal markii dambe kii u horeeyay baan adun ba meherkaagu sax yahay war idinkuna ka huleela na adiguna ilaahay u toobadkeen dambi aanan weliga iyo maqal noociisa ayaad ku dhacday intaasana kaga baxaya ilaahay khayrka hayna waafajiyo waxyaabaha iigu cajabta badnaa intaan dacwadda ku soo dhex jiray waxaa ka mid ahaa markii aan dacwadda bilownay oo meel dhexe annagoo marayna ayaa waxaa dhacday qola ku soo duushay qabaa'ilku waa intaa islaaya marka aniguna waan yara shaqshaqaysan jiray waxbaan dameer yar iyo waxbaan lahaayoo dameerkaasaan iibsadayoo i shaqshaqayn jiray marmaan anaa biyaha ku dhaamin jiray marka dabeetana waxaa dhacday nin iska wadaadaan ahaayoo masaajid baan biyaha isaga shubi jiray waa soo daraa dhowr tanag afar lewd baan ku rogaa masaajidka reerkii baa reer ku soo duulay cishadii dambe baan dameerkii nin wadaadana waan ahayoo masaajidka niman suufiya waxbaa haysto kuma tukado waa diidana biyaha laakiin waa u shubaa waxaan isiradaa lagu weesaysto maantii dambe waxaan imi masaajidkiioo agtiisii dariyo waaweyn foostooyin waaweynoo
dab shidan oo hilibba la karinayo awrna halkaa lagu qalay magaaladu waa meel waxay ku taallaa webiyada Soomaaliya mid uu maro mid ka mid ah magaceeda waxba hadda ma baahan la sheegay marka waxa dhacday haddii magaca la sheego dadka la garanayaa waxa dhacday in waxaan arkay webiga waxaa jirta biyo xireen la sameeyey biyo xireenkii baan sidaa u eegay rag baa sidaa u safan kulligood waa feedhaqaawan yihiin raggaa meesha safan nin quroo shaar iyo garan xiran kuma jiro go' iyo macawiis baa la wada xidhan yahay ninkii xaaji axmed baa la oran jiray masaajidka odayga kaa waxaan ku yidhi war xaaji axmed ma wadaadka ikhwaanka ahaa bay ugu war xaaji biyihii baan shubay maanta maxaa jira dherigaa karaya awrka halkaa lagu qalayo soo ma aragtay awrka markaa docna waa laga saaray haraggii docda kalena waa la wadaa waa lagu bislaynayaa alibari baa ka jira reer hebel baa soo duulay nimanka halkaa fadhiya waxa weeyaan allabarigan iyagaa cunaya qur-aan bay akhrinayaan reerkaasi in maxaan ku idhaahdaa aanu soo gelin magaalada la xijaabaya haye oo qur-aanka akhrinayaan muxuu yahay idaa sulsilad baa la akhrinaya oo maxaa feerqaawiyey nimanka idaa sulsilad marka reeraha lagu ganayo shaar lama xidho waa la feerqaawiyaa buu oo sheekh sidee loo akhrinayaa wuxuu yidhi marka suuradda la akhriyo mee waxaan ku idhi tiradoodu waa intee waa cadadka qur-aanku yidhi waa 114 oo sheekh sidee bay idaa sulsilad qur-aanka oo dhan ma akhrinayaan may oo sidee u akhrinayaan wuxuu yidhi marka ay marayaan silsaalaha bay kulligood waxay odhanayaan silsaalaha 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 toddoba jeer bay lugta odhanayaan silsaalaha annagoo sheekadii wadna mise wallaahi mid walba intuu bawdada qaabiyo sidaa leeyahay sidaa silsaalaha ilaahay wuxuu qadaray reerkii laga cabanayay awrkii iyagaa ku qadeeyo cunay dameerkayga baa khatar galayba aniga meesha diiq baan kaga baxsaday meeshii dameerkii awrkii waxaa cunay nimankii silsaalaha lagu akhrinayay waa meeshii ku xagee ka celinaysa waa khuraafaade waxyaabaha marka iigu yaabka badnaa bay ka mid ahay taas jazakallahu khayran waxaan u imaanay macallin doctor sheekh xasan waa sheekha keliya u ogolahay inuu iga yar yahay ragga kale maya معالي كسر دو مسيرك التعليمية قري علمي والوالد الشيخ أيات طبعا كسر بربارتي لكن تأثير كمان أبنها من هذا الجانب لكن إن مستقبل كاو نقضو سيدا الوالد أو كلا دعوة كشر قيسيد وحيابه كسامي كتبتي واحد كنت أثرتك كسر بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ibayo maanta oo dhan waan xanaaqsanaayo nin la dhacay baan ahayo doctor saciido meeshan ka taliyo culimada anaa ugu yar baan ka qaaday marka laakiin hadda markii xamza uu soo sallaxay waxa weeye doctor calina uu sii dalbaday markii dambana sheekh cabdirashiid uu goolkii ku dhaliyey cala al-itlaaq inuu ugu yar yahay waxa weeye cafa allahu canhum allaha cafiyo nin soo taagan baa xoolihiisii la qaybsaday allah ka cafiyo inta haddaan taa kaga gudbo horta waa arkaysaanoo caawa waxaa loo badan yahay laba teetalo sheekh dhalay baa loo badan yahay ragga qaarna waa dhinacay ka soo galeen oo doctor wey markaa kuwaasaan ku jiraayo dee waalidkii waa nool yahay allah xafido sheekh cali warsame waxaan tilmaamayaa un mowqifyo kooban oo saameeyey waxa weeye dacwadda aanu ku jirnaa welibana dee anigu aan bilowga ahay oo raggani wakhti badan bay soo qaateen haddii ilaahay igu simo inkastoo wadka loo siman yahay aanu insha allahu tacaala isleenahay waa kusii socon doontaan aabe wuxuu dhiganayay jaamacadda madiina secondary iyo jaamacad labadaa markuu dhammeeyeybu wuxuu u dalbaday jaamacadda riyaad ku taalla ayuu master ka dalbaday welibana waxaa la yidhi markuu jaamacadda dhammeeyey sacuudiga waxaa laga bilaabayaa wax master la yidhaahdo ayaa laga bilaabi doonaa 2 sano ka bacdi baa la furayaa jidda iska sii tag jidduu ku sugaya ilaa laga bilaabay lodkii ugu horreeyey ee ka galay dowladda sacuudiga gudihiisa master buu ka mid ahaa waxaan dhashay isagoo masterkii wada
ayaan dhashay horta taasi waa iska sababo suyuudi baa markuu sakhaawi isqabtaan ayaa wuxuu yidhaahdaa nin kutub ku dhex dhashay iyo nin isagoo weyn cilmiga bilaabay ma sinna buu yidhaahdaa marka horta aabbo master wadaan anigu dhashay oo riyaad baan ku dhashay markii la soo laabtayna waddankii lagu soo noqday aabba jaanis badan umaanaan helin oo dil baa lagu xukumay dowladdii shuuciga ahayd ee dalka ka talinaysay ayuunbaa caydhsanaysay waxaan xasuustaa annagoo guriga ku ciyaarayna ciidamadii dowladdu intay noo yimaadaan bay nacnacyana siiyaan oo yidhaahdaan aabba xaguu joogaan noloshaasaan horta ku soo kornayoo aabba jaanis badan umaanaan helin laakiin wuxuu ku fiicnaa macallin buu noo sameeyey booskii waalidka noo galay oo 10 sano ku dhowaad gacanta nugu hayay oo guriga nugula noolaa macallinkaas hadda imaaraadku joogaa sheekh maxamed cabdi cawl booskii waalidkuu buuxiyey aabbana dee dushuu ducada ka soo waday bannaanadaasuu gaaf wareegayay mawaaqifta aadka ii saamaysay waxaa ka mid ah markii aan soo yaro kacay ee aan gaadhay 9 jir meelahaas baan qur-aankii xafiday walibana muqdishoaan ku xafiday macallin la yidhaahdo faarax sheekh cali oo ardaydii sheekh cali suufi ah sheekh cali suufi halka awowgay buu ka noqonayaa sheekh cabdirashiidna adeer buu ii noqonayaa ayaa waxa weeye qur-aankii ii dhammeeyey muddo 9 bilood ilaa sanada ayaan qur-aankii ku xafiday dabeedna waxaan noqdayba kabiirkii malcaamadda rag iga waaweyn baa joogay markii dambe waxaan u dallacaanoo 10 jira hooyooyinkii oo ay ku jirto hooyadii anoo yar bay dhimataye xaaskii aabbe oo na soo korsatay ardaydii la lodka ahaa iyo dumar waaweyn oo hooyooyina oo sitaarada inoo dhaxaysaan macallin u noqday anoo 10 jira dabeedna mawaaqifta iga soo mara waxaa ka mid ahaa sidaan uga dhegaysanayaan idhaahda caashay ka bax markaasay tiraa anigu maanta ma lihi maanta ka bixi maayo dhiiggii caadaday leedahay caadana ma aqaan markaasaan dhowr iyo 3 bay noqdaanoo macallinkaan u tagaa waxay dhahaa macallin siday u joogtay odhanaysa anigu maanta ma lihiye ka bixi maayo ma maalmaa la fasaxay markaasuu fahmay macallinka wuxuu yidhi xaalado gaara baa jire iyo muu cadday laftiisu hadda unbaa dee wax waliba u bilisan yihiin hadda 5 jirkaa og baan u malaynaya dabadeedna uu ifahansiiye wuxuu yidhi adigu hadday ku idhaahdaan ma lihi ka soco waxbaa ka dhegaysa horta anoo yar inaan macallinnimo bilaabay saamayn bay ahayd markii dalka lagu soo noqday 29kii ayaa waxaan bilaabay haddana magaalada waxaa la yidhi xaafidaha la doono anaa lay soo helay imaam taraawiix iyo tahajud baan noqday anoo yar waxaan xasuustaa cimaamada ma lahayn ilmo yar baan ahaaye cimaamadda aabbaa maalinkaa madaxa la isii saaraa dabeedna cimaamaddaan dhulka jiida cimaamaddaa iga weyn markaan dadka ka dul tallaabsanaya waa la ii banneeya ma awood inaan ka dul tallaabsado taraawiixda iyo tahajudkaan tujinayey imaamnimadaana waa laygu shaambadeeyo raggii ila lodka ah marka meelaha hablaha lala hadlayo haddaan is idhaahdaba la hadal war shiikhiina tujinaya miyaanu ahayn baa la yidhaahdaa suuqa waa iga xidhma taasina qodob bay ahayd iyaduna saameynteyda iska leh waxaa kaloo saamayn lahaa anigoo taraawiixda iyo tahajudka tujiya ayaan koox star la yidhaahdana kabtan u ahaa ee lambar 10 u ahaa oo dhiidaan ka dhalin jiray 89 bay ahayd baan filayaa 89 waa lana xiray wax dambi oon samaynayna ma jirin laakiin dee waad garanaysaan duruuftii berigaa jirtay iyo dowladdii jirtay iyo waxbaa la isqoonsaday annaga waa lana xiray waxyaalaha aan la yaabo oo masaa'il alqur'aan ku saabsan ayaan xusuustay kulley waxaan idhi doctoorku caawa waxun buu ku weydiin doonaaye bal maxaa kuugu yaab badnaa intaad xabsiga ku jirtay waxaa iigu yaab badnayd xabsiga intaan ku jiray nin baa la soo xidhay qol baan ku jirnaa nin baa la soo xidhay waa lanagu soo daray marka ninka marka lagu kala soo qabanayo suuqaa la iskaga soo qaban jiray loo sheegi maayo reerkiisa meeshaa markaa dadka joogay xabsiga horeysiu joogay baa busta iyo wax siinay qolkeennii baan seexinay ninka markaa habeenada ka mida inay habeenkii hore ahayd ku labaad inay ahayd garan maayo isagoo hurda camiiqa ku jira ayuu qur-aan bilaabay wuu hurdaa qur-aan buu akhrinayaa suurata qulbaqara la akhriyey ahli cimraan buu ku xujiyey suuratu nisaa buu akhriyey wuuna hurdaa
waa dhag hadda u hurda weliba waxaan xusuustaa suuratu nisaa laba aayadoo isu eg baa ku jira إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنهروا تلبضنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وتلبض تي هر مركو مري أيو يري تي هر واي أقو تي دم بولي ما إيمانني وأنا سي وضع كون هردا صبحي مركان ويديني والله ما أجيبه يري أنا قلت لكم حيقول دهان adoo hurda ayaad qur-aanka akhriyaysa horta waxyaalihii cajaa'ibta lahaa ee xabsiga aan ku soo arkay intii aanu xidhnay ayay ka mid ahayd taa ma ku daynaa bas khalaas wallahu tacaala aclam بسم الله horta cilaaqadayda aniga xaaskayga alxamdulilah rabbil caalamiin wanaagsan tahay sanad iyo bar bay igu qaadatay inaan isguursanno oo dib lay dhigayayo marna lay lahaa arrintaa waxba kama jiraan marka horta si aan xaaskayga u guursado kaadideedaan u soo cabbay laba qof waa aad isugu fiican banay alxamdulilah rabbil caalamiin imika ugu dambe mayd maxaa ugu dambeeyay meel kaa la sii sido karoonuhu markuu dhacayna labada qof ingiriiskanu joognayo dee guri baa nagu xidhay markaa jacaylkaygu zaa'id buu noqday xaqiiqatan markaa imika soo baxayey iyadana daaqad guriga sar baan deganay cimaaradda doorka saddexaad daaqadayga eegaysa anna hoosaan joogo sidii aflaantii hindidan usaa isu macsalaamaynayna mar dad badan oo jaar oo soomaaliya baa nala degan waxaa laga yaabaa inay daaqadda naga eegayeen iyaga laftarkooda moogta sidaan u socday shantadihii baan kala gurayo sidaan sidaa u lahaayaan mashquulsanaa baan madaxa ku dhuftay gidaa aragtayda marka alxamdulilah su-aasha igu adag waxa weeye marka laygu idhaahdo imise xaas baad leedahay ayaan idhahdaa xaas keliya markaasuu idhahdaa maad labayn markaasaan sidii qof ooyaya adeertanaan dirqiyaallaa ku guursaday mid labaad ma karayo adeer iga daaya idhahda oday baa igu yidhi adeer imise xaas baad leedahay markaasaa ku yidhi mid markaasuu yidhi adeer xagga caafimaadka ma dhibaataa jirtaa markaasaa ku yidhi may waan fiicanahay libaax baan ahay libaax matiida bisad baa tahay buu yidhi marka alxamdulilah aad baan isugu wanaagsannahay iyana way dhegaysanaysaa baa laga yaabaa habi bay tahay caajiya waa keligaa weeyaan kolley dee shayga markaanad qorin ee aanad dabagelin sidaa dictoorka oo kale wax badan baa ku dhaafaya laakiin su-aalaha runtii aan aada uga yaabo waxaa ka mida baryahan dambe marka fatwada oo kale waxyaabo aan dhaqanin oo ahaan jirin horay ayaa kuu imanaya ruux dumaraba maalin maalmaha ka mida waa ii timid mabay fogaynba waxay leedahay sheekhoo musiiba ay haysata galadeeg hadda dhaqan xumadu halkay maraysa iyo diinla-aantu odaygii baa waxaan ka kari la'ahay inantiisii gabadhiisii waa tii uu dhalay ayaan ka kari la'ahay maxaa yeelaa sheekh waxaan anigu qabaa inaan ka furanahay ayaan anigu qabaa markaa waa arrin jiqigu noqday buu noqday haddaan idhaahdo ka car reer baan duminayaa ee haddaan idhaahdo ku joogo halkaasii joog arrin ka weyn weeye haddaan idhaahdo isagii u yeedh waxaaba laga yaabaa inuu idhaahdo maxaad sheekha igu sheegtay uu qoorta gooyo marka runtii waxyaabaha igu yaabadnaa ayay ka mid ahayd siyaabo kale ayuun baan dee ugu jawaabo aan u maareeyey kuwayaalaha ugu yaab badan bay ka mid ahayd wax laga naxway fadiilad sheekh marba waxaan youtube-ka iyo facebook-gaba aan ka arkay barnaamij sports adoo waddada isku dhibagaya oo xawli ku socda marka barnaamijkaas waxyaabihii kugu dhaliyey iyo faa'iidadii aad heshay iyo reactionka dadkaan u baahanay jazaaka allahu khayr waad ku mahadsan tahay su-aasha adi yar fududaysay jasaaka allahu khayran horta arrinkaasi si yaro kadiisu u dhacay anigoo meel iska lugaynaya ayaa nin kabarad sitaba igu soo baxay oo dhallinyaradana watan kabaradda lagu saliday moogta isla kaysa wariyey hal min suura iyo wax un bay had iyo jeer ku qabtaan gaarigaa meel dhigtay waa iska lugaynayay wuu isoo helay
waa igu qabtay markii dambena mikrofoonka ayuu si yaroo dhaqso ah iigu dhoweeyey kelmad yara jeediyay oo dadkii dee aan ku dhiiri gelinaya inaanay si xaydh fadhida aanay u noqonin inay yaro dhaqdhaqaaqaan yaro dhiiriya laba arrimood unbaa markaa igaga soo noqday midi waxa weeyaan sheekhu waxay yidhaahdeen war ma wuxuu fududeeyuu fasaxay barnaamijkii kaalay ila lugee kaalay ila lugeedu show waa barnaamij iga horreeyey buu ahaayo dumarka hargeysa qaar ka mid ah ayaa show ku yaro baaqay oo waddooyinkay show lugeeyaan wax kaloo kusii hoos jira garan maaye kaalay ila lugee barnaamijkii la odhan jiray kii baaba sheekhu fasaxay bay idhahdeen qolo kalena waxay idhahaan oo sheekhiisa ka youtuber buu noqdee markaad youtube-ka isku xayeysiiya ayaanu noqday marka taasina kolley sidaasay ahayd laakiin barnaamijkaa iska kadiska ah ayuunbuu runtii ahaa جزاك الله خير فضيلة الشيخ وعن وجود بيا بإذن الله